kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu dambeeya dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya maxay yihiin labada qodob ee xasaasiga ah ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu la tegayo shirka Turkiya. waxaan idiin haynaa faahfaahinta safarkii ugu horeeyay ee ra-iisul wasaaruhu kaga ambabaxay magaalada Muqdisho islamarkaana noqonaya oo kii ugu horeeyay oo dalka dibadiisa uu ku tago. ciidanka Masar oo la ogaaday inay kusoo wajahan yihiin Soomaaliya iyo dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo diyaar garoobaya falcelin toos ah. maxay yihiin qodobada ay ku heshiiyeen Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdullaahi Dane islamarkaana adkeeyay dooda kulamadii ka socday magaalada Garowe. faahfaahin ayaan idinkaga haynaa kulamada albaabadu ay u xiran yihiin ee ilaa xala ka soconaya magaalada Garowe. dowladda Sacuudiga lacagtii ay ku taageeri lahayd dowladda federaalka Soomaaliya waxay u leexisay mid ka mid ah dalalka caalamka. maxaa sababay? waxay ka carootay xukuumadda Riyaad ayaan idiin soo gudbin doonaa. dowladda Soomaaliya waxay fashilisay qorshe la doonayay in lagu fashiliyo xoreynta dalka oo dalal shisheeye ay dabada ka riixayeen. madaxweyne Farmaajo oo 5 sano dalka hogaaminayay sidee ayuu u arkaa in 100 maalin gudahood madaxweyne Xasan Sheikh uu bilaabo dagaalka xoreynta ee meelo kala duwan oo ka tirsan dalka? beesha caalamku waxay ku guul dareysatay in ay taageero siiso Soomaaliya. ma waxay sugaysaa in ay dhimasho bilaabaan malaayiinta qof ee xaaladoodu ay xun tahay? inta daawateen waa qodobada wararkeena daawada kusoo dhow wararkaasi warar kale dhammaystiran subscribe saar channelka dhambaalka wararka sidoo kale follow gare oo sii share gare la wadaag saaxiibada page-kana dhambaalka wararka iyo wararkiisa. aan ku bilowno ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa safarkiisa ugu horeeyay kaga kicitimay magaalada Muqdisho isagoo u jihaystay mid ka mid ah dalalka caalamka. socdaalkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ra-iisul wasaaraha tan iyo markii la magacaabay uu kaga kicitimo magaalada Muqdisho. waxa uuna u jihaystay mid ka mid ah dalalka caalamka iyadoo ay soo baxayaan laba arrimood oo ra-iisul wasaaruhu uu doonayo in si diiran ula wadaaga caalamka. wafdiga ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxa ay u jihaysteen magaalada Tunis caasimadda dalka Tunisia oo ay kaga qayb galayaan shirka caalamiga ah ee Tokyo ee horumarinta Afrika ee loo soo gaabay TICAD kaas oo ah shirka horumarinta Afrika islamarkaana uu la tagayo laba arrimood oo muhiim ah. waa in Soomaaliya laga taageero dhinaca horumarinta dhaqaalaha iyadoo weliba ay Soomaaliya soo bandhigayso istiraatiijiyadda maalgashiga ee aan ahayn mid ku salaysan taageero gargaar ama siineed oo la siiyo Soomaaliya, balse in la maalgeliyo oo la horumariyo dhaqaalaha iyo sidoo kale shaqo abuurka. ayay doonaysaa dowladda federaalka inay ku bedelato taageero weydiisadkii tooska ah ee caalamka. in la taageero hay-adaha ammaanka islamarkaana dalalka caalamku ay taageero toosa ay ku bixiyaan horumarinta ciidamada qalabka sida waxay ka mid yihiin arrimaha uu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre la hortegayo shirkan. sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu gudbinayaa fariin adag oo ka socota Soomaaliya kuna aadan dhibaatooyinka lagu hayo xuduudaha badda iyo sidoo kale meelo kala duwan oo kheyraadka Soomaaliya ay ka xadaan dalalka caalamka oo qaarkood ay gogol joog yihiin shirka Turkiya. magaalada Tunis xarunta dalka Tunisia inta uu ku sugan yahay ayuu la kulmayaa madaxda sare ee dalkaas oo ay ka wada hadlayaan xoojinta iskaashiga dowladahan Soomaaliya iyo sidoo kale Tunisia. maxay yihiin qodobada ay isku afgarteen Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdullaahi Dane oo kulan gaar ah yeeshay intii uu socday shirka kulanka guud ee Puntland iyo dowladda federaalka? ilaa xalay saqday dhexe waxaa socday kulamo isjijiid badnaa islamarkaana u dhexeeyay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheikh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane. kulamadu waxay ahaayeen kuwo adkaaday islamarkaana goor dambe uu ku soo biiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen oo isku raaceen in Xasan Sheikh Maxamuud uu saxiixo kow in guud ahaanba talisyada ciidamada ee ku sugan Jubbaland iyo Puntland si toos loo hoosgeeyo hoggaanka sare ee maamuladaasi ama madaxweyne Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dane inay la wareegaan awoodda magacaabista taliyayaasha, xilka qaadista iyo sidoo kale hogaaminta ciidanka iyadoo loo bedelayo ciidan dowlad goboleedku uu leeyahay. dowladuna ay maalgelinta soo marsiiso wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale
bangiyada ama ilaha kale ee dhaqaale ee dowlad goboleedyada. Waxay sidoo kale ku heshiiyeen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu saxiixo oo aqoonsado muddo kordhintii loo sameeyey madaxweyne axmed madoobe, taasoo noqonaysa isha xilligan arrinta lagu hayo. Waxaa sidoo kale kulamadu ay sii adkaadeen kadib markii Puntland ay soo jeedisay dalab in isku shaandhayn lagu sameeyo golaha wasiirada, isla markaana ay hesho wasiirada ay doonayso oo gaashaandhigga ugu horeeyo. Arrintaasna waxay ka mid ahayd arrimaha adkeeyey kulamada. Waxaa sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku gacan sayray in dib loo soo cusboonaysiiyo heshiisyo hore oo dowladda federaalka iyo sidoo kale Puntland ay wada gaareen, sida xilligii farmaajo iyo sidoo kale xilligii hore ee xasan sheekh maxamuud. Arrintaas oo ku gacan sayray. Ciidamada Masar ayaa la ogaaday inay ku soo wajahan yihiin Soomaaliya, iyadoo dowladaha Itoobiya iyo Eritrea ay u diyaar garoobayaan falcelin toos ah. Markaba ay leeyihiin ciidanka dagaalka ee dalka Masar ayaa la xaqiijiyey inuu u soo ruqaansaday dhinaca xeebaha badweynta Hindiya ee aagga Soomaaliya, kaasoo 24kii saac ee lasoo dhaafay ku sugnaa xeebaha badda cas, isla markaana ku jiray meel aan sidaas kaga durugsanayn aagga gacanka cadmeed oo ka soo gudbay. Markabkan ayaa la xaqiijiyey in uu marayo xeebaha badweynta Hindiya maanta, isla markaana u muuqdo mid ku soo wajahan biyaha Soomaaliya ee xeebaha bartamaha iyo sidoo kale koonfurta. Ilo xogogaal oo diblomaasiyadeed ayaa xaqiijinaya in markabkan ay saaran tahay sanad dagaal iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidanka cirka iyo sidoo kale kuwa dhulka ah ee dalka Masar. Dowladda Itoobiya ayaa u diyaar garoobaysa falcelin toos ah oo ku aadan in Qatar ay kaga soo wajahan tahay aagga badweynta Hindiya dalka haysta ee Soomaaliya, inkastoo mas'uuliyiinta dowladda federaalka aynan weli arrintaasi ka hadlin. Waxaase la aaminsan yahay in labada dowladood ee Itoobiya iyo sidoo kale Masar oo cadaawadooda ay meel sare gaartay in arrintan ay qayb ka noqon karaan ciidamada badda iyo sidoo kale kuwa cirka ee dalka Suudaan, inkastoo burbur dowladeed uu ka jira dalkaasi. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa la ogaaday in dhaqaalihii ay ugu talagashay Soomaaliya ay u weecisay mid ka mid ah dalalka caalamka, sida ay xaqiijinayso warbaahinta gudaha ee dalka Sacuudi Carabiya. Waxay Sacuudigu amreen in la bixiyo lacag gaaraysa $1 bilyan oo dollarka Mareykanka, taasoo marka hore loogu talagalay qoonda ahaan in lagu caawiyo dalka ay xaaladda adag ka jirto ee Soomaaliya, isla markaana saami ku lahaa lacagahaasi. Lacagtan ayaa la amray in lagu maalgeliyo dalka Bakistan, iyadoo weliba la raacayo ajendayaasha maalgashi ee horey ay u samaysay dowladda Bakistan. Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan iyo boqorka dalkaas ayaa u muuqda in ay si toos ah ay u taageerayaan dowladda Bakistan, isla markaana ay maalgelin toos ah ay ku sameynayaan. TV-ga dowladda ayaa xaqiijiyey in maalgelintan uu amray boqor Salmaan bin Cabdilcasiis Al Sacuud, oo Maxamed bin Salmaan ayaa noqonaya hogaamiyaha arrintani. Waxaa sidoo kale ku dhawaaqista maalgashigan ka yimid dalkaasi shaaciyay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudi Carabiya iyo Bakistan oo kala ahaa Faysal bin Farxaan iyo sidoo kale Bilawow Bokto oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Bilawal waxa uu xaqiijiyey wasiirka arrimaha dibadda dalka Bakistan inuu taleefanka kula hadlay boqortooyada dalkaas, isla markaana ay u xaqiijisay maalgelintan tooska ah ee xukuumadda Jalalabad ay ka helayso dalkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa fashilisay qorshe shisheeye oo lagu fashilinayay xoreynta dalka. Waxaase xusid mudan in la isweydiinayo su'aal ah madaxweyne Farmaajo oo 5 sano dalka hogaaminayay, sidee ayuu u arkaa in 100 maalin gudahood madaxweyne xasan sheekh uu u diyaar garoobay xoreynta dalka. Waxaa qorshahan dabada ka riixayay siyaasiyiin ka soo jeeda aagga howlgalladu ay ka bilowdeen ee bartamaha Soomaaliya, kuwaas
oo xilligan u muuqda in ay siyaasad ahaan dagaal kula jiraan madaxweyne xasan sheekh. Waxaa lagu wargeliyey ciidamada militariga in ay ka fogaadaan ciidanka dadka deegaanka. Ciidamada dadka deegaankana waxaa lagu wargeliyey in ay iskaga baxaan dagaalka, islamarkaana ay qaataan wadahadal ay la galaan al-shabaab, islamarkaana ay iskaga haraan, iyadoo lagu wargeliyey in ciidanka dowladdu ay iskaga bixi doonaan aaggaasi maalmo gudahood, taas oo ah arrin dhibaato ku noqon karta dadka deegaanka. Inta ciidamada dowladdu ay joogaan ayayna siyaasiyiintan u ololeynayaan in dadka deegaanku ay wada hadal furaan oo ay la heshiiyaan kooxda dagaalka lagula jiro. Arrintan sida uu ka digay wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka waxay ahayd mid tuhunkeeda dowladdu ay hore u qabtay, islamarkaana laga yaabo in la kala qaybiyo ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa militariga ee dowladda federaalka. Waxaa la isweydiinayaa su-aal ah, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo dalka hogaaminayay 5 sano ee lasoo dhaafay, wayna u suurtagelin inuu si toos u bilaabo howlgalka xoreynta. Sidee ayuu u arkaa in 100 maalin gudahood uu xasan sheekh qabsado deegaano hor leh oo ka tirsan gobolada bartamaha? Dad badan ayaa aaminsan in madaxweyne farmaajo uunan la dhacsanayn tillaabooyinkan degdeg ah oo sumcadda u soo jiidaya madaxweyne xasan, islamarkaana kalsooni badan dadka ku abuuraya, sidoo kalena wiiqaya aragtidii waxqabad ee madaxweyne farmaajo. Ugu dambeyntiina beesha caalamku waxay ku guuldareysatay in ay taageero toos ah ay siiso Soomaaliya, waxaase loo arkaa in tani ay tahay ka wardoonida in dhimashadooda lasoo wariyey malaayiin qof oo xilligan ku jira xaalad adag. Wakiilada beesha caalamka iyo dalalka ay ka joogaanba weli iskuma howlin in ay arrintaas ay si toos ah jawaab kaga bixiyaan inta karaankooda, waxaana dowladda federaalku ay ku dadaalaysay cadaadiska ay saarayso dalalka wakiiladoodu ay ku sugan yihiin Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre maanta waxa uu la kulmay intaanu dalka ka bixin Anita Kiki Gabeho, oo ah ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, oo ay ka wada hadleen xoojinta taageerada Soomaaliya ay u baahan tahay ee xaaladda adag ee xilligan lagu jiro. Guud ahaan daawada intaas waxaa ku dhan warkii oo kaga imaanaya dhambalka wararka nabadgelyo.